wuxuu u duulay Addis Ababa soo u soo raali geliya Abiy Ahmed soo kama fiicnayn inuu waliis Soomaali raali geliyo oo ka dego deegaanada Soomaaliya colka siyaasadeed la yahay intuu nin Etoobiyana hoostiisa tagi lahaa hadduu damiir leeyahay oo maskax dawladnimo iyo qarannimo xashaq ay ku jirto shirja inta qabto wuxuu dheelaa Soomaaliya Daacish ku soo duushay sababtoo ah ma jirto adduunka 11 qofood oo ajnabi ah oo Daacish ah meel ay ka sameeyeen weer ismiidaamin adduunka ma dhicin maanta waxay inuu shirja qabto soo istaago oo yiraahdo Soomaaliya waxa ku soo duulay Daacish laakiin xafiiltan kala dhaxeeya Siciidani siyaasadeed iyo madaxweynaha uga aamusan yahay waa ayaan daro wala socotiin dadka Soomaaliyeed waxa lagu abaabulay oo guri iyo geedba looga soo bixiyay dhulkeeni cadow qaadanay soo madaxweyne Shariif sheegay baarlamaanka loo shiri mucaaradii muxaafida lagu taageeray hal soo wuxuu diyaarad qaatay waxaan aragnay asagoo Abiy Ahmed la dhaansi gareynayo la qoslay su'aasha waxay tahay ma ninka gardarooda soo hoyda mise ninka lagu gardarooda hoyda Abiy asaabadana soo damcay asaga ciidan ka joogan Ethiopia Soomaaliya asaga u baahan ciidanka Africa Union in loogu daro asaga anaga hoyanayna abta iyo sumcad darada meesha ka dhacday Ethiopiankana maanta ay ku damaashadayaan waxay tahay in horta ayaga loo hoyday mana qariyaan ninkii lagu gabood falaa loo soo hoyday dhahay ay kala xaqiijiyeen inaanan dad hoggaanka Soomaaliya la isku halay karin lana fila karin meesha u socdo oo dawladihii kale ay leeyahay yihiin oo shalay madaxweynaha u orday heshiiska alliance-ga la soo galay madaxweynaha wuxuu nagu riday runtii sumcad darro kaliya maaha indhaha meesha caalamka iyo dawladaha gobolka iyo dadka Soomaaliyeed ba si liidasho ah ayuu runtii uga dhacay indhahooda Xasan Sheekh Maxamuud ninka tabar daran male wuxuu isku muujiyay inuu tabar badan yahay laakiin ninka tabar daran ma laha wuxuu ku tabar daran yahay shacabka Soomaaliyeed ma hayso sumcadna kuma dhaxle nuqbadii siyaasadeed ama eliitkii siyaasadeed ama horweyntii siyaasadeed heshiis lama aha taageero beel caalami ma haysto kuwii asaga xilka keenay taageeradooda ma haysto afartaba meelo taageero ka haysa male saas daraadeed dadka walwalka ka muujinayo u maleeyo inuu yahay in dalkan xoog ku sii haysa kara waa luusan yihiin war kuwa inuu sii jooga xashaqo dalka xoog ku sii haysa karo oo ciidamada aruursanaya lacagtooda daldalna inuu ku joogi kara aaminsanow haluminina dalkan xoog waa lagu joogi waay Mareykan ay yimid oo awood ka weyn jirin Ethiopia timid oo awood ka weyn jirin dad wata oo soo keensaday waa joogi waayeen ku asaga ka horeeya isku day inuu guryaha noogu soo daato hoteelada noogu soo dhaco waa joogi waayeen war dalkan in xoog ku joogi kara male fursadaha yar ee waqtigiisa ka dhiman waxaan kula talinaynaa madaxweynaha inuu talada dhulka iska dhigo asay u roon tahay maha anaga kaliya inuu roonta dadka Soomaaliyeed u roonta waxaan ku xasilinaynaa oo niyad ugu dhisaynaa dadka Soomaaliyeed ee walaaca qaba ee u muuqata inuu Xasan Sheekh ka tashto go'aanka kaligiis gaari karo haday deegaano yihiin ama haday qabiilo yihiin ama haday dad Soomaaliyeed intaba yihiin annaga taagan Xasan Sheekhna dalkan waxa loo dhiibay maalin cada loo dhiibay sharcigiisa iyo hoggaankiisa maalin cadna inuu miiska soo saaro asaga laga rabaa annagana waxay mas'uuliyad naga saaran tahay inaan ka joojino sida kuwii asaga ugu horeeyaba aan uga joojino idinka waxaan ka rabnaa kaliya taageeradiina iyo garab istaagiina dalkan dal winner takes all ninkii guuleysta wax kasta qaado